إذنك إنك شدنت والله وبالله وتالله إذنك إنك شدنت عاوسو دواذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عاوا حناقصناهي ميش ميل ليسر ما جرتو ها hello you have to vote for فرحية you have to vote for عاشا you have to vote for hello u vote garay maxaa ugu vote garaynaysaa Soomaali wax ma qabana gabadha Soomaalida Minnesota ku baahan Minnesota waxa ku degan yihiin half million Somali people how come 200-300 oo kun oo Soomaali baa Minnesota degan sidee gabar Soomaaliyeed ugu baaba'day ugu dhimatay ugu rafaasantay ma sheegi kartiin aw Soomaalimadii aw dadka dawladda ku jiraay aw Cabdi Warsamo aan aqaan anigu halkan fariin waxaan ugu dirayaa Cabdi Warsamo qof kale anigu mas'uuliyo waxaan kale oo madax isku sheega madax ma yahay aan wada qashin hatta runta sheegaya cid aan ka baqaana ma jirto ilaahay aa laga baqadaa digaal aan la socdo maanta waan digaalsanay salaanta wa calaykum kulligii hal mar aan ka wada qaaday maanta way u kacsanta caawa gabar Soomaalida halkaas aan ku hay haddaan qad ka soo gelinay hadda inta ka soo badantaan baan sugayaa siday ku dhacday gabar Soomaaliyeed Minnesota inay ku dhibaatonto ma sheeg kartiin ay masaajidka inay tagto ay suuxdo oo wax loo qaban waayo aw Soomaalinimada Minnesota ani waa tag waa magaalo qabiil hore baan u sheeg haddana waa sheegaa alla laandheera haday ahaan lahayd ay ku dhihi lahaayeen waa wax walba loo qaban lahaa qadkaan soo gelinaa qadka salaanta wa cali maanta way u kacsan tahay wa calaykum salaam kulligii waa wada salaam hal idin salaam waa xanaaqsanahay waxa maskaxdiina galeen gabar Soomaalida oo balanbalsana ay soo wacaysa waa ooynaysa aw Soomaalinimadii عاورة Minnesota ka shidanta caaw Minneapolis Minnesota ka shidanta meeqa Soomaali baa joogta meeqa Soomaali oo guriyaha ka shaqeyso ma gabadhan baa guri loo waayay sokor ay qabtaa sokor waa xanuunsan tahay waxay weyso qof Soomaali oo caawiya xitaa waxay tiraahana guriyaha leenka lagu galo waan haystaa guriyaha leenka lagu galo waan haystaa ay tiraahday hadda waxa dhageysto maba sugay caaw programka dadka daawo dadkiina inta soo badataan ma sugi karo ana waa waxa waana seexana way u kacsan tahay qof aan sugay ma jirto salaamu calaykum وعليكم السلام. abbaay codka ku furan kowde هاي ummadda Soomaaliyeedna way ku maqashaa internetkeeda ka xun miya ma aqaano may maqashaa هلا ها هدانكم مقلا okay waxaad ii sheegtaa problemkaaga marka kugu ilmaha macmaciisi xabiibti problemkaaga meesha ugu horeyso uu problemkaaga qabsada waa intee sababta ilaa heerka aad ku soo gaarsiina waa maxay gabadha qadka abba internetka ma ka halaysan kan guriga ku xiro ما يواكم مقلا maandeeq nuur waa ku salaama xabiibti macmacaan ku siiyey waxaan ku weydiiyey caqab problemkaaga ma ii sheegi kartaa qisadaada koom igaga soo bilaabi kartaa halo waxaa igu dhacay naag cadaan aan guri ka kireyste waa la maqlaa ma aho gabadhan walaashin waxir iisu dhammaantiin waa in wada salaamay shukur afrax waa la maqlaa ma aho abayba marka la hadal bal ma la maqlaa haa imay iisoo qoro abay hadal bal xabiibtii ها islaan cadaan aan guri ka kireystay islaanta cadaanka aniga iyo laba canugaan dhalay islaanta cadaanka markaan week deganaa waxay bilowday biyaha kuleelka inay iga dansato inay text message maanta dhan iisoo dirto waxay leedahay iga guura adii ciyaalkaaga waa waalantihiin iga guura misana guriga waa idinka saaraya marka ilaa 3 weegaan fiirinaya messagekeeda lead waxaan u tagay kuwa looyariinta u tagay waxay igu dhaheen naagtan qofkii saddexaad ay ka kireynayso eesaan u gashaa tahay looyariintaaba ku dhahaayaba haa gabadhii guurtay markaan soo degaayay gabadhii guurtay hadday suud garaynaysaa ayaa la dhehe waxaa la dhehe gabdhaha oo
like Soomaalida iyo madowga iyo oo single motherska ay guriga ka kiraysaa haraasment ay ku bilowdaa si ay depositkooda u haysato ay gurigiina ka baxaan haye marka maxkamadii la tegay waxay dhahday waan jiranahay maskaxdaa la iiga jiraa marka waxay ku dhaheen inay kaa guurtaan rabnaa liistiga sanadaa saxiixe marka waxyar leeba jooge waxay dhaheen liistiga hor jebinaysaa adoo raali ka hayee dhahde haye markay 3 week uu guriga iiga dhinaa 3 week kabacdi inaan guura ahayd askare waxay aaday maxkamaday aaday waxay ka dhigtay aniga ayada address warqaday qortay way idishay dhahde waxay ka dhigtay inaan ayada la noolahay marka judge-ka kama warqabo situationka marka wuxuu sameeyay warqaduu soo siiyey uu dhahayo agteeda ma tegi kari askara ay imaatay 2 askari waxay dhaheen warqadan waa ka yaabanahay waxay tahay guri dhanaaba adiga gooniyaa kala degan tihiin gurigaana kale waxay dhaheen iga saaray leedahay ani idima saarayo dhe askariga wuu baxay askari kala soo noqday wuxuu ku dhahay waa inaan baxdaa hadii kale waa lagu xirayaa haye wuxuu ku dhahay aniga ima blame gareyn kartid judge-ka warqadan soo qoray waa inaa blame gareysaa maxkamadii aan isku daynay inaan tagno maxkamadii ballantii diiday inay imaato waxay ka dhigtay maalintii aan guur lahaa because waxay ogeed in la dhahayo gurigaa kusoo noqoto maalintii aan guuri lahaay ballantii dhigatay ma imaan karee dhahde maalintii aan guuri rabe wuxuu dhahay judge-ka wax qaladaysa suu dhahay maxkamad kale waa inaa sii aadiin uu dhahay laakiinse aniga dismissed inaan kayskan ka dhigay wax kale ma samayn karo haye dismissed ka dhigay waan ka guuray guri waa la ahay mana la maqlaa waxir isu ma lay maqlaa Soomaaliya hadaa lay maqlaa la soo qoro ma lay maqlaa waxir isu abay ma lay maqlaa ha okay hore u socdeen haye hore u soco marka guri dhan waa la ahay guriyihii waxay fiirinayaan ma sug waxay la degnaa markii ay booliska ku imaado oo guriga laga saaray waxa ay ugu tiri masaajid Soomaali ma u tagay masaajidkan tagay masaajidka magaciisa markaan tagay sokoraan qaba aniga insulin wax la dhahan qaataa haye anoo yariisa igu dhacday oo Afrika joogo marka waan suuxay habeenkii masaajidka magaciisa aad tagtay Minneapolis ku dhaxay laamiya Abubakar Sadiq masaajidka Abubakar Sadiq aad tagtay haye Minneapolis ku yaala haye markaan suuxay ambulance dhexdeeda marka aanu ku dhex jiro aan soo kacay cirbada igu dudureen ikiciso waan kacay marka waxay igu dhahay sokortaada dhacday isbitaalka ku geenaynaa marka waxaa wadeen ciyaalkayga waxay dhaheen intii gaalada loo geen lahaa imaamka iyo xaaskiisa iyo gurigooda la geeyay imaamka masaajidka Abubakar Sadiq gurigiisa la geeyay gurigooda la geeyay haye maalintii dambe wuxuu dhahay dantaada iska soo dhameysay igu dhaheen anaga ahayn ciyaalka maanta waan baxay waxaan u tagay office-ka waxaan tagay wiilka siriga u shaqeeya Cabdi Warsame haye muxuu ku soo dhahay asaa hadda fariinkan ugu diraaye hadda ka horna waan la hadlay wuxuu igu dhahay arrimahan anaga ma galno arrimaha guryaha ma geli karno dhahay hadda ka horaan la hadlay marka aniga ma harin waa u tagay hadda haye marka u tagay gabar yaraa meesha fadhisay ma joogay igu dhahday maalin kalaan ku noqday gabar asaga la shaqaysaan la hadlay waxay tiri gabadha waxaa xasuustaa hadda ka hor ay soo wacday xataa isku dayay dhahday kuwa laysanka iyo waxaas inaan waco shaqadeenana ma aha anaaba la igu qayliyay dhahday gabadha ayaan tufow macmacaan ku sii haye marka waxay yaa igu qayliyay ku leedahay yaa igu qayliyay ku leedahay naagta lagu qayliyay markay leedahay gabadha waxay tiri anaga shaqadeena ma aha inaan guryaha sheekadooda nee dhahde haye wax qof ku qayliya ma ogi laakiinse waxay tiri aniga ii dagaaltamaysa gabadha
markii kow ay sheekaday ugu bilaabataan waay haye marka waxay dhahday waa isku day dhahday kuwa laysankii iyo inaan waco aan naagtaaniito laysankeeda laga daba tago waa wax serious ah haye marka waxaan ku dhahay aniga waxaa u shaqaysiin ani kama warqabaan dhehe xaafadiinaan degnahay aan mas-uulka ka tihiin waxa i haystana keligay ugumay dhicin aniga tii ugu darneeda dhacday dhaheen looyariintii waxay dhaheen kuwa gabdhaha kale madow amerikaani ahaayeen aniga wiig aan degnaaba way igu bilowday gurigayga anagoo hurudna intay soo gashay anagoo alaabteena kala furfureena ciyaalkayga aniga sawiro meel walba naga qaatay marka markaan guuraayo guriga showine xataa samaynaysa dadeeday guriga maalinta ciidda xataa ciid waa ciidi waaye waxaan ku dhahay ciiddeen waaye maanta qofnaha keenin guriga hatuusan 20 qof oo kala noocaa guriga soo gelaysa cabdi warsab waxuma qaban karo igu dhahe waxaan tegay 5 communities tegay waxaan ku dhahay meelaha aadna ma haysana ani ilmahayga dhibaana haysto wax inaa ii qoyar weyn ii qabatiin ama guri ii raadisiin waxay ku leeyihiin qof 5 sano ka badan jooga maba caawina annaga lacagna ma haysana aan wax kuugu sameyno Somali community Minneapolis idin lacagna waa qaadatiin haddaana Mareykanka ku dacweyn waa la arki doonaa haye iiwad waxba kuma qaban kare ugu dhaheen kulligood ayagoo ay dhibsanayaan marka waxaan isdhahay maybe qof wax ku qabanayo okay hadda adig isku waxay ugu dhaheen marka adi maxaa samaysay markaas kadib intee aaday ilaan guri ma haysatid caruurna waa haysataa aniga ilmahayga way yar yihiin waana ciyaal America xoogoo iska hyperka ah waaye marka laba gabdhaha baar la joogay dadkii guryo dawladay degan yihiin guryo kiray degan yihiin waa lagu dhibsanayaa marka hadda at least bill aan homeless ahay bishaan homeless ahaa marka gabaraan u tagaaye haddana waxaan imaaday motel aan kiriste deganahay xalan soo degay motelka adiga caruurtaada ilaa meeqaad deganta markaa meesha ilaa meeqaad degnaan kartaa wiigal because hotelka qaali waaye qaali ma kugu yahay hotelka motel waaye qaali waaye motelada waa gubino raqiis maaha okay ha oynin xabiibtii kowdhe mii maqashaa abaayo horta wax walba qadar allay ku dhacaan ha oynin xabiibtii mii maqashaa abaayo ha oynin please and please caloosha ha i hurinin kowdhe sorry guys abay mii maqashaa don't cry yeah don't cry okay caruurta aabahood ma kula joogaa yeah intuu joogaa California wuu joogaa miya horta waxa ayaan darra ah Somali community oo Minneapolis joogto oo Minnesota joogta inay gabar yar oo Soomaali ah waxaad ii sheegtay habka guryaha lagu helo inay ku fududahay ma ii sheegi kartaa waxyaalaha ay haysatay wadankiina waxaan wataa wax la dhaho section 8 3 bilood aan haystaa oo iga dhacayaa 3 bilood haddaan guri ku helin guryaha markaa buuxsanaysid wax application fee la dhahaan dhigaa waan u sheegaa dhibka iga qabsaday guri warqadahan tustaa waxaan ku dhahaa haddii guriga isiinaynin kuleeyihin in lagu siinayo inaa qualify garaysid weli ma ogiyay kuleeyihiin because qof walba wuxuu kaa waa fiiga aad dhigaysid mafahanta fiigii markay qaataan waxay ku leeyihiin amsorry gurigii ma u qualify garaysid haye
soomaalida communityka u tagtay markaa u tagtay waxay ku dheh ma ku caawin karno waxna kuma samayn karna waxaan ku qaban karnaa idin okay maxaa la dhahaa ii sheeg hadda meel ka fog maa deganta Minneapolis gudaheeda meel ka ijaaratay Minneapolis meel yar oo u dhow aan ka ijaartay okay abaay ha oynin xaafad la dhahaa ha oynin xabiibti horta midaan kuu sheegaa ha oynin kowdha annaha iga oynsiinin soomaalina wallahi ummadda Soomaaliya wada oynaysaa kowdha may maqashaa waxirsaa igugu jir yaa waxirsaa igugu jir waxa ayaan darro ah gabar Soomaaliyeed ee caruur haysata ee sokor qabta ee xanuun qabta in la caawin waayo iyadoo waxay igu tiraahday waxaan haystaa guryaha section 8 ma tiraahday maxaa tiraahday igu soo celi section 8 saddex bilood haddaysan gabadhan guri helin waxaa kaa dhacay miya section 8 ka kaa dhacay miya ha ugu dhacayaa saddex bilood ka bacdi meesha aad degan tahay hadda isma bixin kartid waa inaa ka baxdidaa yaa meesha aad degan tahay hadda wiil ka badan ma degnaan kartid maya okay ilmaha aabahood ma wacday ma la hadashay ma tiraahday ku aaway ilmaha aabahood ima caawinaayo ilmaha wuxuu rabaa in ilmaha layga qaado oo asiga la siiyo marka it's not just gonna help me abaay ha oynin kowdha ilmaha aabahood waa idiin sheegtay waxay inku tiraahday wuxuu rabaa ilmaha in layga qaato oo asaga la siiyo raba ay tiri anigoonaan homeless noqdo sug gabadha waxay ii soo qortay nambarkeeda waxay igu tiraahday call that number they accept section 8 and available please it sug sawiraa qaada ii sug 1 second sug sawiraa qaada maya waxa ayaan darro ah waxa ciil iyo cara loo dhintaa magaalo dhan ay Soomaali degan yihiin oo maalin walba la leeyahay kongareeskii baan madax u noqonayaa school boardkii baan u ordayaa halay codeeya maxaa lagu codeynaya wax u qabanaysaa qofka dhibanay wax uma qabanayside ilaahay baa in ku dhaarshay hadda yaa loo codeeyaa qofka loo codeyn kara maanta ma ii sheegi kartiin please call the number Monday bishaara maxay ii soo qortay bishaara ila hadal bishaara hore u soco waxa waaye Soomaali waa xaasidiin isha ka tuurtay hanaan عليكم وعليكم السلام ساتهي waan fiicanahay idin salaamaya dhamaantiin seetihiin waa fiicanahay walaalay macaanay gabadha abaaya waan salaamayaa ilaahayna dhibka ka saaro Soomaali meel walba ay ku dhibaataysan tahay walaalay aniga America jooga oo haayo systemka abaaya sheegisana waa maqlaaya walaalay sug haye wadooyin badan ay gabadha mari kartaa jirto shaltaraa jiro guryo shaltaraa jiro dawlad baa jirto gabadha waxa waaye inay direct farankale county-ga u tagto waraaqaha ay geysato ay dhaqaaqdo ay fadhiga ka kacdo waxa waaye community-yaasha Soomaalida ay tagto ay tiraahdo war aniga way u tagto community Soomaalis way u tagto way shan community oo taga kula bishaar xabiibti wax soo caawiye malaha anigu midda ku hay ninkii saanoga u baqbaqlaynayo halay doortay dadkaygan garab istaagay abaay aniga dadkeena ma abdi warsam waxa ka sheegay aawi lahaan shalay halay doortay ummadda Soomaalida wax u qabana aawi ninka Maxamed Nuur la halay doortay lahay aawi gabadha hodan la dhahaysi hodan la dhahaya hadda soo baxo halay doortay ay dhahaysi kulli waa kaga ibin kulligaas ma dhaanti dhasho qof aan ka baqanaana ma jirto ilaahayna kama baqanaysid korsi ilhaan ka bilaaw cabdi warsama ku xiji hodanta ku xiji hebel kale ku xiji waxaa tihiin qabiilaysooyin waa soo hoyataan
maanta haddaa abaayo ilma adeer iyo ina adeer iyo abti iyo habarada idin ahaan lahayd ama dheera wax loo qaban lahay gabadhaan I know nin walaalay walba macaani qabiilkiisu aniga kursi hadda ugu fadhiya ee qashinkiisa okay qabiil baa abaayo waxaan indardaray rabaa inaan weydiiyo su-aal baan rabaa inaan weydiiyo waxaan rabaa inaan hay weydiiyo ma waxaa laga dhigay baar credit oo ayadu guri magaceeda kuma heli karta miya ii weydii waxaa lagu weydiiyey mii maqashaa xabiibtii ha waxaa lagu dhahay bad credit ma lagaa dhiga oo magacaaga ma ku qaadan kartaa guriyaa lagu dhahay mase maya naagti way bad baar credit credit bay kaa lagama dhigtay dhigin bad credit okay lagama dhigin magacaaga soo clean ma tihid magacaaga soo clean ma tihid magacayga clean waaye waxaa guriga la iigu diidan yahay because waxay leeyihiin 4 bilood guri aad degneed aliistiga jabisay listen to me marka walaalay macaantoy dadka Soomaaliyeed annaka waxaan nahay dad fudud annakoo sharci wadan la joogno oo xuquuqdeena dhacsan karnaa saas u biilayna waxar iisu bad reference ay iga bixisaa naagta la waca reference khalad ay ka bixisaa haye listen to me waxaad samaynaysaa haye booliiska tagaysaa maxkamadda jaadkii baad u tagaysaa warqad caddayna naagtan inay ayadu saas ku tiri kiiskan iyo dismiss ka dhigay baad soo saaranaysaa maxaa baa isku jilcinaysaa waxa waa meeshan America aniga meeshan joogo waxa ka jira community baa ka jiro wallahi labada indhood dhiig hadda ka keento qofku caawinaya ma jiro you have to wadan sharci la joogtaa walaal inaad dhexda xiratid macaantoy annakana xanuun biib la dhahan nagu dhacay sharcigeena annaka xuquuqdeena cadda oo sharci ku dhacsan karno wax walba hawl fududaysi waa iska biibayna naagta hadday saas kugu samayso horta the first day aakhaldanta waxay maalinta guriga ka guurtay inaad guurta lama rabin waxaa la rabay inaad soo dhahdo naagta ii soo saar warqad cadaynaysa aniga inaana leystigan jabin adiga aad jabisay anyway hadda waabad guurtay wixii kugu dhici lahaana way dhaceen dhexda xiro maxkamadda tag ninkii kiiskaaga sameeyey u tag waxaad ku tiraahdaa aniga naagtii saana bishaaro waxaa samayna mataqaanaa nambarkeeda inboxka kugu soo gelinayaa adigu la hadal nambarkeeda please adiga horta adiga waan kugu soo darsaday whatsappkayga I don't know wax ka khaldan walaalay ma ku soo qaban karo whatsappkayga aan kuu soo dirayaay isoo wac adiga laftirkaaga whatsappkaagaan rabaa inaan gooni kuula hadlo gabadhana please lambarkayga halkaana haddaan raba kuu soo diraa si anaa u sheegaya waddaday mari lahayd jileecan iska dhaaf kartidaada iyo naagnimadaada adiga luuqadaaba taqaana dadaan luuqad aqoonaa nool dhexda xiro abaaye macaanto ha ooynin oohin waxba kuuma tarayso waddankeenni baan oohin iyo baroor kaga soo tagna joognan inaan baroorana ma rabno you have to inaad dhexda xiritid oo warqad caddayna ka soo qaadatid ninkii maxkamadda oo tirahdid give me warqad caddayna naagtaan iyo dacwada isla marnay iyo inay iyadu guriga ka baxay tiri iyo looyaradii laftirkooda aad warqad ka soo qaadatid iyo magacooda iyo saxiixooda aad tustid guryaha wad habin abaaye maxaa iskaga dhigaysa qof tuulo jooga waa runta isha ka tuurtay may waxaa samaynay baan kuu sheegayaa bishaaro nambarkaaga inboxka ii soo geli nambar garee magaalada dhan magaalo kale usoo u muuf garee haddaa magaaladaada jeceshahana dadaalkaa suubi maxkamaddana warqad ka soo waxay ku tiri magaaladaada ma ka soo guuri kartaa intee u guuraa ohio ama meel kale no waa inaan guuro okay aniga waxaan samayn karaa aniga walaalay hadda ohio jooga community-ga ohio waa tegi karaa ninka jooga waa u tegi karaa waa ku oyn karaa waa dhihi karaa please adaa magacaaga shaqaynaya community-ga maanasooro la hadal adeero waa oran karaa intaas un baan kuu samayn karaa haddaad soo move garaynaysana magaalada aan jooga ama magaalooyinka kale aan dadka aqaano waa kaa caawin karaa laakiin meeshaas ma joogo walaalay macaanto gabaraa tahay carruur yaryaraa haysataa waddan waxaa joogtaa qurbe ah dhexda inaa xiritid waay ninka xaasidka oo ilmahaan dhalana waxaan ku leeyahay walaalow soomaali baa tahay wax ay dayacanna waa ilmahaagi inaad adinkoo walaalaha isla soomaaliya isjiijidataan ilmo isku qaqabsataanna waa foolxumo caawi gabadha walaashaaya ilaahay ha ku soo hadeeya adigan ha ooyin xabiibtii ha ooyin please wallahi waa dhibaato maalin walba dhibaatan baa dhagaala kusoo dhacay fadahel dadka ayakii baa kala cadgoonsana oo qofba qof cunaya ayaana rabaa ninkii baan saan isku cunayna ilmo aaboodii hooyadood isku haystaan oo qurbo jooga abbaay macaanta duqbilow baan raadinaynaa dhammaan waxaan raadinaynaa jamiilo jj gabar la dhaho oo walaasheen oo maanasooro joogtaan raadinaynaa ayadan oo baan raadinayaa aniga waxaan ku dhahay hawshaan dhan isku xirxiraaya gabadhaana ayadana ha ka kacdo fadhiga ma ahan inay meel fadhiisato waddan sharci lay joogtaa meel walbana warqad caddaynay kala soo bixi kartaa oo guryaha inta la tagto waa run naagti baa guriga baar kiriid u gelisay saasay guryuhu u diidayaan naagta intay baar kiriid adiga kaa dhig lahay inaa ayada ka dhigtidaa la rabaa oo naag soomaaliya adag noqotida baay maxaa oynaysaa midda labaad dawladda u tag aniga shaltara u baahana ilmaha yararkaa haysta
naag baa saan ii gashay warqadaana haysta lawyerkaana caddaynaya maxkamadaana caddaynaysa naag baa saas ii gashay qofkii intaasoo qof ay u gashay baanan ka mid ahay anigu ugu dambeeyey qof xanuunsanna waan ahay ilmahaana lama dhacdhici karo I wanna help it adi waxaan sameynay gabadh nambarkeeda kusoo siina caawiye reer Minnesota daatiin ani magaalada hore waan u tagay waa magaalo qabiil haddaan joogi lahaa haddaan u dhaqaaqi lahaa meeshii joogta aniga ohayaan joogaa I'm sorry reer Minnesota ana aqaana waa magaalo qabiil ana soo arko isoo kala dhuuma jirtay wadankoodii intoo kasoo kiciyeen baadana oo bahalkii la imaadeen qabiil uf dadkaana iga soo boodo والله بالله والله ياب ayaan meel kasta baa dhibaatada ka jirta hadda maxaa dhacay ayaan dhowto magaalada aan deganahay waxa ka dhacday gabar baa guri intay kireysatay oo kiradii bixisay ee rasiidkii haysatay markaasay naagahay waxay ku dhaheen guryaha joogay dadkeenana waxaa la arkaa baa inay yihiin dad jaahiliina oo sharciga qof walba wuxuu leeyahay adiga afka ma taqaanidi haddaa meel fir aad doodaan gashid adiga qof walba wax sharciyo cad oo waygaaga adiga u jeed wax kule iska daa waa lagu qabanaya waa lagu xiraaya rabale waxba lagu xiraaya baa ku dhacay war qof la xiraaya ma jira sharci baa xuquuq baa leedahay xuquuqdiina raadsada oo dad nool oo nafta ku jirta noqda waxaa dhacday gabarta iyada rasiidkeeda haysatay naaga waxay ku dhaheen ka baxnaaya guriga rasiidka ay lacagta kirada ku bixisay haysataa markaasay soomaalida naa ka guur nootiis qaad sharci baa jira adduunkan waxbaa la kala saxiixdaa qofka bini'aadamka xataa naagtaas hadda gabadha guriga ka baxdhahaysa sharciga hadday gabadhaan raaci lahayd 3 bilood weeye aniga hadday guryaha aad degan tahay lagu yiraahdo ka bax 3 months in lagu siiyo waaye sharcigu saas u dhigaya oo guri ku raadsan kartid ma aha inaad iska guurtid oo iska dhaqaaqdid sida wax waalan oo kale sharciga America jira waa 3 months inaad guri ku raadsatid haddaad guryahaas inta wax ka hadlayso lagu yiri guur oo xagga guryaha uu kaaga imaado hal guur 3 bilood baad deganaanaysaa okay gabadhi guur baa lagu yiri gabadhi maalinta ma iyadoo barooranaysa gabar wacdo walaalay saasa igu dhacdo guri kiradii waa bixiyo rasiidkii waa haystaa naagu waxay igu dheen kiradii maad bixino guriga waa ku guuraya gacanta inta soo qabtay community albaab ku garaacday ninka community way meesha noogu fadhida anaga dhibkaana haystaa soo bax gabadhi inta gacanta soo qabtay ninka community meesha joogo waa nin haddaa u tagto isku duubtid maasha Allah fiican kula dadaalayo laakiin qof wareegayo dadkii ogo dadkiisi ka warqabo oo dhibaatadooda ka warqabo ma laakiin haddaa albaabkiisa tuntid wuu ku garab istaagaya bas gabadhii intuu u imaado naagtii miiska u garaacamada waa ku yirnaaya sharciga kala timi haddaana maxkamad kula korneeyaa farxiyo waxbaa khaldan adigu leh ana meesha degana marka ay soo qorays ma tiraad ana ku caawinayo abaay yaa dhahay hay ka soco loo ma jawaab hore u soco haye marka abaay anaka inaan hadda raadino waaye oo dadka meesha jooga anaka aan ka naqaano maarsoor anigana waa raadinaya hana adigana raadi gabadhana lambarkeeda ii soo aniga cabdi warsama wacaaya walaa cabdi warsama lambarkiisa aniga ii soo dir ana 10 u dhigaaye halay doortay dadkayga wuxuu qabanaya baq yaa ka jilicsan gabadhan maanta wuxuu qaban lahaa waa tusaas dhahaye hadduu maanta gabadhan caawin waaye hadduu asaga shaqadiisa ahaan waa ilhaant intee aadiyadana haddii asaga shaqadiisa ahaan qof ay shaqadiisa tuhu yaqaanayo ku xiran yahay muxuu qabanaya way u dhigay ilhaant qaylinaysa ama halay doorto dhayse hodanti cabdi wax dhan halay doortay hodanti shal la dooranay cabdi nuurka dhahay anigu halay doorto dhahay waxa Soomaali waa inoo qabiilkiisa loo doortay yaa waa qabiilkooda reerkooda qof walba loo doortay waa ku soo cilna waa mahadsantahay si gooni oo kula soo xiriiray isu qofa soo qabana hay aba nin adduun joogo maxaa aragta ku laaban salaamu calaykum fanaanadayda qaaliga waa ku salaamay aadan kaaga qaada abaayo horta caawo maba hadli kara calool xumad i haysa kulli waa idin salaamaya dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed hana abaayo waxaan la hadlayaa gabadha walaashay ah oo carruurta haysta ama dhibka haysta haye horta waa habeen waxaa lagu jiraa xajkiyaa lagu jiraa waxaan ku duceynaynaa in ilaahay guri khayr qabo ku sahla adii carruurtaadaba amiin ya Allah ha waxa kaloo aan ku darsanayaa hooyo kasta oo Yurub joogto inay karti leedahay ilmeeda haysanayso ilmeeda korsanayso waa la ogyahay taas nacam laakiin hooyada markay xanuunsan tahay qof sokor qaba xanuunkeeda waa ogtihiin idinka laftigiin nacam lacag insulina isticmaalayo ku tiri anoo yaro igu dhacayo ku tiri ma garatay ma fahamtay abaayo ha ooyin deeqo ma deeqa ooyin xabiibtii iyadoo sokor qabta haddana sokorta qofka markuu qabo waxa waaye sokorta ka dhacaysa
qof doodi kara ama dagaalami kara ama xafiis tegi kara ama nolosheeda wax qabsan karta maaha abaayo marka nacam something died waxaa meeshan waxbaa ku jira abaayo ninka caruurtiisa ogolaaday inay gaalo qaataan hanay oo ogolaaday inuu gabadhi bush gareeyo gaalada u ogolaaday maxaa dhici kara ma ii sheegi kartaa marka hooyadu dhashay hadday alkulista tahay hadday cudur qabto hadday waalan tahay hooyo cunugeeda wax uga fiican adduunyada ma laha صح marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay horta aaday u dhibaataysan yihiin aabbaha ilmaha ka dhalaayana ma ogo qalbigeeda ma ogo inuu nin fiican yahay iyo inuu yahay ما عندك استاك بوك noqdo xabiibtii marka la soo qabso maamaliyu qofka joogaa ii soo jiida caawa war ani waxaa igugu daran Somali community aaday waa laysoo caawin waaye anigu taasaa la yaabanahay anigu hore baan inkugu sheegay anigu I don't trust anybody qofka dambo igu dhahana support garay hana ilaahayo waxbaa lay dooranaya magaalo hebelba wax layga doorana ama wadan hebel haddaan ku support garay qof aan wadankayga usu soo sharxan bis waa kugu soo celinaa xabiibtii qof maaliya ka sharxarin hadda ana support garaynaya aragtana amina abaayo iga raali ahaada isoo galay koola isoo galay oo dibadda ah horta waxaa waaye mataqaanaa dhibaatadan haystaan kuu sheega abaayo gabadhii wiilka markay isguursadaan ee ilmo iska dhaal intaysan isguursan ka hor waa la jecel yahay kolba walaashii raaxada ka qaaday hana soo wicina ku dha dadkan I'm so tired waa saakisaan safar uu aad hadda ka soo gala safarkayga umu caaliya aniga caawina hadda caawin wallaahi oo bil umu caaliya nambarkaaga qorna iisug nambarkaaga qorana sawiraa ka qaata anaa ku saawacaa markaa qadka ka baxo waxa ayaan dara waa kusoo qabana maandeeqi kameerad kuuma saarna xabiibtii ka baxa igu soo laaba kameerad ma kuu saarno kameerad kuuma saarna ma kusoo qaban kara maandeeq xabiibtii kameerad la-aan baata inaa I don't know si loo soo ceshto kameerada soo dalba ma allaha ma aqaano hal mar ka bax qadkayga soo laaba bal alla maandeeqay kuma soo qaban kara kameerada kuma saarna xabiibtii facebooka dhan intaa ka baxday mataqaanaa hal mar iisoo laaba mobiilkayga dami soo bilaaw kameerada kuma saarna hana hadda ayaan dooranay rabnaa xildhibaan Sweden maalmo ayaa la dooranayaa malaha ma la dhahay mariga daan wax la dooranaa ma aaminsani anigu I don't trust anybody gabar yaroo Soomaali ah oo sokor qabta oo xanuunsan masaajidka ku dhex suuxday Soomaalida u gargaari weysay maamaliin ma soo gashay maamaliin hadday soo gashay ii soo qora ani waxba inbox wax igu soo diraysaa Sacuudi iisug maam oo ku fiirina heesay isoo diraysa anay ugu kacsan tahay
ما مليون ما صاق شيء أمو عالية أو أمو عالية أو أمو عالية حن ما أتشيدا أنا سوق أمو عالية أو نفع هاي ما عندي هدا كساق بنا هدا كوتشيدا sorry وإيجا ديدني وايا أو كاميرا دكو سارسو إيدي كرا ما عندي هدا إساقة مركل بالإساقة بيقول ده madaxa i xanuuna reer minneapolis iyo reer minnesota reer minneapolis iyo reer minnesota maxaa yaa lasoo qabtaaba wax minneapolis meesha carcaawa 700 igu daawanaysiin qof Soomaali oo kartida ku jirta oo dhahay gabadha walaashay anoo caawina nuguma jira ana Minneapolis oo arka qabiil loo degan yahay ana inta jidka igu aragteen hana in adeertay maanta ay dhihi jirteen kaala casha ku karnayna maanta gabdhihii reer hebel baa casha ku karnay maanta gabdhihii ka reer hebel baa casha ku karnay ay dhihi jirteen عبد الأمور مية سودو معاكو سيما سويت هاد با إيسو قلي أجس وسلامتها إلهي ما كبقدان قريات دقنتهين عيربا قادتان واد شقيستان وأسئلة قمتهين أموها وعى سك أموها وعى gabadha wacaa ii suga gabadhan wacaa the last things sorry aniga Soomaaliya jooga ilaahay hada hudda waa mahadsan tahay ها أباية صار قبل walaalaha fikradahooda dhageysanay kowda gabar baa waxay ii soo qortay ana caawinayo Minneapolis maandeeq هامي مقشا سوق وحر إيسو abaayo hana raali ahaa telefoona caawa nafti ii keenay inaan hadlaan baraba meeshaan caawa ciilkii ahaa ilaah loo sheegtay iyo oohintii hayse haye ani barnaamijkaada waa dhageystaa abaayo problemka barnaamijkaada u badan waxa waa dumarka waa ma fahamtaa abaayo nacam dumarka ha ahaatee waa dumar ilmo yaryar ilmo laga dhalay ilmo laga dhalayna abaayo qof qaban karo oo meel iska soo saari kara malo dadka qofka markuu weyn yahay dhibka asaga iska saari kara mugta xoogaa naagta markay teenage ka weyn tahay dhibka way iska saari kartaa meesha rabtay mari kartaa laakiin cunug yar oo guri ku kortay ama mataqaana ilmo laga dhalay ama mid guri lagu xiray iyo mid ilmo gaala in laga sii la rabo ayay ku soo dhamaatay hooyooyinka Soomaaliyeed hadda gabadha hadalkeeda waan dhageysanayay caawa interesantan ku ahaa waxay ku tiri markaa weydiisay waxay ku tiri ninkii wuxuu rabaa ilmaha inuu gaala iga siiyo nacam oo anigana homeless aan noqdo ana homeless aan noqdo su'aasha weyn aan rabo inaan shacabku u sheegan rabaa Soomaaliyeed adna ay maqashaa baay horta ilmahaasaa ka dhalay maali kale na siiyo alla may ku daayaan ku soo wacay haye taasay ii dhibayaan balaayada manaqa markay arkaan meelahaas inaan ka hadlayno saasay noo daba socdaan haye macnaha haddii homeless ay noqoto ilmihii aa gaala siiso
wuxuu ka faa'iidaya ma ii sheegi kartaa maanta wuxuu ka faa'iidaya inay ilmaha in labay noqonaya inay diinta ka baxaan dhaqanka Soomaaliyeed ka baxaan ixtiraam waalidnimo uusan ka helin asaga xataa ka helaynin ma ogtahay nacam taas midda kaleeto waxaa dhici karto gabadha hadda caawa xanuunka haya sokorta haysa daruufta ugu weyn oo ugu xun waxa waaye qof isniin isku diraya dhibkeeda leedahay haye qofka markuu waa caafimaad ku qabo soo wacaa haye guriyuu raadsanayaa dadkuu dhex gelayaa shacab ayaa meesha jooga Soomaaliyeed Minneapolis jaaliyaday leedahay abaayo dad badan oo waxaa jira muxtaram oo magaalada degan hadda waxaa laga yaabaa dad qof waxaa jira oo san u dhalan dadka inay dhex gasho abaayo oo micnaha oo xirxirana jiro dadka isku mid maaha abaayo nacam nacam way tagtay waxay igu tiraahday waa taga 5 community tag waa lisoo caawin waaye waxaan u taga Cabdi Warsama xafiiskiisa shaqo kuma lihin kuma caawin karna igu dhaheen waa hooyo waa saas sheegtay sokoray qabtaa waxaa laga yaabaa qofta inay saas sheegtay hoos ee dadka masaakiinta ay tahay dad waxaa jira aan hadlaynin oo codkooda goosan karin oo masaakiin abaayo inda adeeg inda farka gelis aysan aqoonina jira bogtahay abaayo marka gabadhan hadda caawa dhibaatada haysato waxaa ka sii daran carruur iyadoo haysato qof carruur haysta marti ma noqon karo waa ogtahay guriga hooyada ayaa aabaha bas ayaa marti ka noqonaynin laakiin walaasha haddii kula dhalata xataa culayska ilmahaaga way dhibsanaysaa ma garatay marka waxaan u sheegaa gabdhaha Soomaaliyeed oo aad u dhibaataysan oo baaba'san in micnaha maanta loo qabto wax gabadhaanaytood hoteelka ha loo qabto lacagta ha la qaaraamo intay guri ka helayso waxa loo qabto gabadhaanaytood haddii hadda Facebook media la soo geliyo hana media waa la soo geliyo warkii iida ku jira caloosheeda ku jira banaanka u yaala maanta waxa qorsan mal at least wax inay hesho laba mid inuu guri loo raadiyo nacam guri loo raadsho oo la hadasho dadka community meesha degan Soomaalida degan inay gabadha guri u raadiyaan Soomaalinimo Islaamnimo walaalnimo in gabadhi hotel laga baxsho ilaa ay guri ka helayso oo loo qaaraamo lacag loo aruusho wax ka dhaxaysa malaabay wallahi abaa horta mid ogow ana min aad ma ogina tagtay aniga Minnesota waa tag Minneapolisna waa tag kowda waa magaalo qabiil aniga waa la isoo wacan jiray hana cidaasa kugu maqalna casho ma ku karna reerkii la gubaan kula naag Soomaaliyeed cid gooni ma ihi waa magaalo qabiil anigu hadina isbedel maanta qabiil wax ma taraayo gabdhihii Soomaaliyeed xaqooda waa la yihiin waxaana boqolkiiba boqol ugu soo celinaya gabar kasta waxay ka cabaadaysaa ilmaha in laga qaato rabaa inuu gaala siiyo rabaa waxaa la yiri bini aadankana horta qof walba dhibaatada familka haysta anaga ma ogaan karno anaga hooyo iyo aab nahay wixii hooyo aab ka dhex marayna anaga ma ogaan karno laakiin mar walba waxaan libinta siinaynaa oo la qaybsanaynaa xanuunka hooyada waaye iyada xamuul haysa iyada carruurta dhashay iyada u soo foolatay haddii waaran tahay haddii alkulista tahay haddii xun tahay ayadaa ilmaheeda dhashay adaa shalay ku guursaday ninka ilmaha ka dhala gabadhaan marka fariinaan inta ugu diraynaa marka hadduu qof islaan yahay oo muslim yahay oo ilaahay ka baqaayo carruurtiisa inuu meel yeela awral maanta sharaf dare u tahay asagoo waddanka geeska degan in carruurtiisii meediyaha laga ogaado inay meel cilla taagan yihiin gabadhina ay jiran tahay ee sokor qabto inuu asagana maanta ku raaxaysto ama baabuur wato ama nolol fiican ku nool yahay ama guri uu ku saxda haysto ilmihiisina xaafadaha loo qaybiyo waa calool xumo iyo ragnimo xumo waa taas nacam marka ilaahay ka baqa niman yahow ilaahay ka baqa gabdhaha silcinaysaan waa kula dhalatay waa ku dhashay waa ku soo siday wallaahi aan ku dhaartay ninkii gabar xumeeya ama gabar dhibaato u geystana wallaahi tiisay ka go'an tahay ama walaashiisay ka go'an tahay abay intee meelay ka joogto ma aqaan hadda waxay igu tiraahday gabadhan waxa montel waxa la dhahaa meel hotel nasriina may maqashaa meel waxay degan tahay hotel camal ay degan tahay waxay igu tiraahday wallaahi way iga oysisay maanta waxay igu tiraahday xitaa ma awoodo igu tiraahday waa qaali expensive waaye ma awoodo inaan sii degnaada hana maalma Minneapolis laga waa ilaahay baa kugu dhaarshay maandeeqay ilaahay kugu dhaarshay guri Soomaali ah ma gabar Soomaaliyeed ma laga waayo Minneapolis oo tirada walaashay kaalay aniga ku caawinay xafiiska kula tagay wax kula soo saaraya ma laga waayo Minnesota inta Soomaaliya degan meelaha qaar laguma ciili karo anigu London Soomaaliya joogto laguma ciili karo soo Kenya Soomaaliya joogto waxba laguma sameyn karo mana lagu ciili karo haya Columbus sida camal Toronto waxba laguma sameyn karo Soomaali baa degan taas aaminsanahay wallahi alxumo waxa ah dad Soomaaliyeed meesha joogeen nin maqan ceebtiisa astur waxa way dadka xagga jooga ayaa maanta ceebtaas haysataa gabadhaas miskiinta ah
guri la'aanta ah Soomaaliyeed hooyooyinaa degan dhalinyaraa degan gabdhaha degan wiilalaa degan inay u kacaan guri u raadiyaan inay caawiyaan gabadha maskiinta xanuunsan sokorta qabto ilaahay nagu miridee sokorta waa dhib badan tahay wallahi waa dhib badan tahay wadanta xabiibti alxamdulilah ilaahiga caafimaadka wallahi anaga caafimaadka nasi eedan Allah ha siiyo annaga aan haysan ilaahay ha siiyo Allah ha siiyo wallahi sokorta ciyaar ma aha ani waa u duceynaynaa caawa habeen waxa waaye laba soonkii waxa ka dhiman iidii laba habeen ka dhiman faataxada umar qof kasta oo muslim ah gabadhaas in ilaahay culayska ka qaado ilaahay culayska ka qaado ilaahay qof la eeday mana fiiri raggi ma ka maarmaan Soomaalida fiiri ninkii ilmaha ka dhalay aasaan maanta banaanka soo dhigay raggina ma la dhigi karo waa wada xun yihiin hanay abaayo macaane boqol wiilal oo ilmahooda korsadaan maanta joogaan oo wanaagsan oo dahab ah ha laakiin dhibaatada meesha jirtaan ku sheegaa laba qof aan isfahmi weyne colaadii ilmihiisa lagu baabi'inayaa abaayo hadduu ninkan ku naco ilmihiina u dhamaatay hadduu ku furo xataa adiga hadduu ku naco ilmihana ma rabiyo nin hadduu ku furo ilmahaaga ma rabo marka taas waa la wada ogyahay wax soo jiri jireen waaye ayeeye kasii ahayd wax anagana lagu dhalay waaye walaalay allaha kuu furo albaab khayr qabo wax aan ilaahay kaaga baryaynaa in ilaahay ku sahlo muraadkaaga gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay gabadhaan lacag ha loo aruursho lacagtaas aan u wada dirno kulligeen aan meel ugu shubno akoon haraasato intii guri laga raadinayna hotel ha sii deganaato community iyo Soomaaliyeed qeyl dhaantaan hala gaarsiiyo hal sheer gareeyo waxaan idin leeyahay garab hala sii gabadhaas walaashay ah waan idin salaamayaa kulligiin waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan ilaahay ceebteena iyo ceebta muslimka ha asturo ana baay waan salaamayaa waan jaraynayaa wallahi waan qiirooday ma garad waa ku dareemaya xabiibti waxa ayaan darra ma taqaanaa war ani waxaan la taaganahay Soomaalida community oo Minneapolis degan ma ilaahay baa in ku dhaarshimay wax baa laga ani waxa wax maskaxda gala in la isku sheegaa fiican ani fikirkayga daan ka sheego taas abaayo lagama weyni Soomaali inta Soomaaliya degan waa meesha kaliya adduunka ugu badan yihiin Mareykanka ma fahamtay laakiin waxaa jiro abaayo sheekal koos waxaa jiro abaayo waxa laga yaabaa gabadhi inay dhex gelin Soomaalida abaayo mid isaabta ku dara abaayo isaabta mid ku dara abaayo hal qof at least laba ama saddex ama afar wixii ka badan ma laga yaabo inay taqaano ma malaynayo because qof waa dareemay miskiin ay u egtahay waana qof xanuunsan xanuunka waaya abaayo dadka kugu diraa sokorta qofka qabo waxyaabo badan uu leeyahay sokorta leedahay marka ilaahay ha ka caqaado iyadana marka gabadh dadka shacabkaas Minneapolis deganna ani ma dhigi karo kulligood dhagoolay ka yihiin arrimahan ay tood waxa laga yaabaa caaw inay ku baraarugoyn ay maqleen ay arkeen oo media ka arkeen abaayo marka waxaan rajaynayaa inay ilaahay ceebtooda ha asturo gabadhaan ceebtooda asturaan reer Minneapolis meel walba joogtiin ha inay gabadhaan ceebtooda asturtiin oo carruurteeda iida meel ku asturtiin oo iidana caafimaadkeeda ilaahay mataqaanaa u sahleeyeen iidana meel ay ku noolaato intaasna hanaa in laga warqabo gabadhaasaytooda abaayo macaanay wixii loo tara kara loo taro ani intaasaan ku darsan lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maasanta xabiibti wacalaykum assalaam ay bay wanaagsan abaayo haya xabiibti I love you gabadhi waan wacaa isu waqadkana waan kasii baxaya anigu ummadda Soomaaliyeed ee Minnesota joogto oo Minneapolis joogto ee ku daawanaysa maxaa oran lahayd fariin nooc u dir lahayd ummadda Soomaaliyeed ani maanta dhibka aan marayo Soomaalinimo iyo muslimnimo la ii marsiiyo haye halka waxa calooshii xanuujin codkaaga uu gogo'a xabiibti please waa idin baryayaa halo qodkaa ka halaysan may maqashaa may maqashaa haa hadda si fiican ku maqla maxaa ay tiri aniga abaaye dhibkan dhan maanta Soomaalinimo la ii marsiiyay ani iyo ciyaalkaasba haye Soomaalida waxaa aad uga xumahay anagoo dhibka Soomaalinimo la ii marsiiyay in ay community-yaasha Soomaalida ay igu daawadeen intaan u tagay anoo ooynayo ilmahayga wato ee ilbaabka naga soo saareen intaan dadkii Soomaalidii oo ofisyaashii dhan fadhiyeen meel walba mid walba aan u tagay ay soo wada celiyeen aadaan uga xumahay maanta
ilaahay meeshay joogaan anigu igu bedeli karaa ayakana meeshaan joogo wuu ku bedeli karaa qabiilna I don't know qabiil aa sheegaysaa maqlaaye maanta ani qabiil ahaan la iima soo saarin soomaali ahaana saan iimarsiiye haye but insha allah ilaaha noo qoray inaan dhibkaan marno ilaahaygi unbaa naga saari karana dhibkaaneeto but I just want soomaalida inay ogaadaan qof soomaalinimo loo sameeyo always qofka inaan la hilmaamin hello ha qofka soomaaliga inaan always la hilmaamin oo mataqaanaa soomaalida I love my people ani dadkayga waa jeclahay but marka oo mataqaanaa dhib uu ku gaaro qof walba qofkaasuu hoos usulinaya and that's not good ma fiicno qofka biniaadanka because in oo mataqaanaa qofkii la dhibsado markuu dhib haayo haye but insha allah ilma yaraan wataa ilaahayaana naga saarayo dhibka waa mahadsan tahay kowdhe isagu wiila soo qabana aniga wiila soo qabana iisu saa ugu jiro asalaamu calaykum هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو غالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله قبل لقد كنت تفتح ملينا مقلع كل وحلا قدم قدنا ويتاي horta koley reer Minneapolis dad badan oo community badan oo Soomaali ah ku nool Minnesota hadda ka hor maasha Allah markii walaashan Aamin Lurax ay xanuunsatay fanaaniin baa u kaceen waxay lacag badan ka soo aruureen Minneapolis intaasoo kun oo dollar marka maanta walaasheen haddii maanta loo kaco reer Minneapolis ay u kacaan waxyaalo badan ay u qaban karaan kolley maadaama oo dad ay daciif maanta ay u tagtay dadkaas haddii xumaadeen dad wanaagsana magaalada ku nool insha allah kolley haddii maanta ay videogan ay daawadaan insha allah waxna waa laga qaban karaa markaas insha allah adigana waa kolley waxyaalo badan aa samaysay hadalkaada waxaa ugu tartay maasha allah hadalkaada u gudbisay dad badan oo Soomaaliyeed ay ku daawanaysaa maasha allah gabar baa ku dhigaysa maanta dhan nambarkeeda hal ii soo diro kolley hadday maqlaysa gabadhaas ciidan waa loo diri doonaa macali waxay ku dhahdaa anigaa caawinaayo insha allah waa la caawinaa insha allah walaasheen niyada ismurjinin insha allah niyada aan u dhisno insha allah walaasheen way ka bixaysaa dhibaatadan ragga isku mid ma wada ahan dhammaantood rag xun waa ku jiraan rag fiicanna way ku jiraan maasha allah walaasheen ha iska sabarto insha allah saas ayaan leewaana mahadsanta abaya qaali hay asalaamu calaykum suga nambarada iisoo qoro please nambarada gabdhaha iisoo qoro aaway maslax ayaan dara ah ilaahay baa inku dhaarshay Minneapolis guri ma laga waayay gabadhaasi caruurteeda la dejiye ilaahay baa inku dhaarshay Minneapolis iyo Minnesota gabadha Soomaaliyeed ee caruurteeda meel laga dejiye meel la waayay alla meelaan foga dhirir badan meelaan jooga dhan qolkayga ila soo degi lahayd wallaahi oo billaahi oo tallaahi xabiibtii mii maqashaa hello haa mii maqashaa waa ku maqlaa aad iyo aadaa u mahadsan tahay waa anigaa ku soo wacay telefoonkaaga dad
anigu hadda waxaan raadinayaa dad mas-uuliyiin ah ma fahantay oo minneapolis degan gabdho iyo wiilal dad baan raadinayaa ha nambarkaaga dadka qofka aan ku soo waco oo ku dhaha hanaa ka socda ama hanaa nambarkaaga ama hanaa isoo siisay i- leela hadli kartaa qof kale oo maxaa lagu nambarkaaga anu cid kalena ma siinayo ma og tahay ha qofku caawinayo le aan soo siinayaa insha allah biidin illaahi kariim marka maxaa la dhahaa waana lagu caawinayaa down war niyadaadana khayr u sheeg 24 saac gudaheeda insha allah biidin illaahi kariim 24 saac hana arrintan shacabka Minnesota waa inay ogaada fila inay wada ogaadaan ayaan filayaa caawa media abaay nambarkeeda iisoo qora marka waxaa waaye maama milyuun aaway caawa meelay jirta dheera ma aho maama milyuun mms yaa iisoo qabta aan inboxka u galo qofka maama milyuun yaqaana ha ii waco ha iisoo gasho qadka marka waxaan sameynaya umuu nambarkeeda iisoo qora ma haya dee sawiraa ka qaada mana kasoo dhex qoran kara abaay waa lagu soo waca niyadda khayr u sheeg yaa insha allah mahadsanta baya hay asalaamu calaykum maama iisoo qora umuu nambarkaaga umuu waa ku soo qabana aawe umuu intaa kaa soo qabana kameerada derbiga ku aadee hadal ku aawe maxaan soo wacay dadna hanoo tilmaamin daaya anagaba nagu furan tahay caawe umuu waa ku soo wacaya kameerada xitaa hasku aadin derbiga ku aade asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مقلسة waa ku maqlaa ها أباي إن سيدان الله لوجه الله مقاني gabadha waa caawinayna gabdho kale oo xataa minataa ka jooga hadda isoo wacay jiirada iga soo wacayada ama asaga ama adiga iga soo wac insha allah waa la caawinayaa isla magaaladaas gabdho jooga caawina xataa gabar 3 qol degan kaligeeda caawinaysa oo dhahda isla magaalada isla degannahe oo 20 min ayada Minneapolis ma joogtaa intee joogtaa weydii bal min Minneapolis waa waxa meesha exact joogta waxay igu tiri waxay tiri waxaan ijaartay sug ilaahayow khayr ku sii thank you abaayo ilaahay macaanta intee Minneapolis intee ka joogtaa banaankeeda ma joogtaa minneapolis xalan kasoo tagay Rapids xaafadlaan jooga intee joogtaa intee joogtaa Rapids maxaa tiri ku soo celi waxay isu maxaa tiri Colorado Rapids Allah Rapids ma ii soo qori kartaa minneapolis meeqa saac ay jirtaa Minneapolis meeqa saac ay jirtaa nambarkayga soo minitaaka xaafad minitaaka waa 20 minutes Minataka ma ku dhowdahay ku jira Minataka Minataka minitaanka I don't know hawa ii dhowyiina umaleenaya meeqa daqiiqay ku jirta Minataka I don't know wallahi I don't know okay waayahay laakiin live-kii waxaan ka xishoonayaa oo aqoonin ana xataa waan ka baqaay marka waxaa samaysaa lambarkeena soo sii hana soo wacdo waa isku xirnayna waa la caawinaa insha allah wixii lala qaban kareen sug waxir iisu yaa waxir iisu waa kugu soo celinayaa xabiibtii wan second kugu soo celinaa mii maqashaa umu si fiicana ii maqashaa maaho horta waa mahadsantahay khayr allah ha ku siiyo waad mahadsantahay sida islaamnimada ku jirto soomaalimada ku jirto gabadhaas loo caawinayo laakiin aniguna waxaan wataa shuruudahayga haddaana laga soo bixayn gabadhaas yaana la caawin dad kale u raadsanaa hadda idiin sheegaa shuruudahaygana waa idiin sheega soomaali adna waa kuu sheegaa gabadhan haddii inta loota la wacay la dhahay maxaa kugu dhacay intay wax ka jiraan ninka maa ku furay abaay problem maa ku haayo anigu su'aal uma baahni mid waa midaas gabadhan inta la waco la dhaha
qabiilkee tahay tolkaaga meesha ma jooga anigu uma baahni gabadhaa haddaa la wacay la dhahaaya walaalay macaanay maxaa la dhahaa ii sheeg ninka muxuu kugu soo furay ilmahaaga eedda ma u jooga adeer ma u jooga anigu caawinaad noocaas uma baahni anigu gabadhaan haddaa la waca mii maqashaan ku dhamashirta iisu shuruudahayga kuu sheegaa anigu haddaa gabadhaas la wacay la dhahay walaalay hanaa nabarkaaga isoo siisay waa kuu imaanaa isdiyaari lasoo wada guri la keena la dhahaa cun cabjiifa halkan warqadahada keen anaa ku caawinaya oona aana interview lala gelin waraysi laga qaadin qabiilkeeda la weydiinin waxa allah waxaa weydiin kartiin malaha haddii aadan saas aadan wax u samaynaynin walaahi 2 mitir oo qabri baa ku sugaya gabdhaha saaxiibayaasha 2 mitir oo qabri baa sugaya haddii su'aal la su'aalayo oo hadhow la dhahayo xitaa annagaa caawinay hata ku faanaada iromaint haddaa rabtiin ha lagu faandhibu ma arko laakiin qofkii in asoo duruufo haysto oo haddana boqor soomaali baan ahay aba anigu dad soomaali waa aqaanaa xubbi macmacaa ku sii soo dhawaaw ma fahantay anigu caawinaada waxaa igaga dan aan ku dhamaystiro isku xabiibadkay ku dhamaystiro let me finish yaan ku dhamaystiro anigu haddaa caawinaad fasiix ah ay soomaalinimo inka go'an tahay ay ku jirto welcome hadda idin sheegaa laakiin anigu haddii in ku jirto gabadh inta la waca maxaa kugu dhacay inta may ka dhacday su'aal la weydiinay anigu caawinaad noocaas ah qof aan ka rabo ma laha hadda kuu sheeg ama stretch anigu laalaabna ma aqaano hadalka adiga iskale xabiibtii waana ku maarsanta islaamnimada ku jirto walaaltinimada ku jirto oo ilaahay waa soomanahay hadal qaylin kara koodhi waa soomana walaashay macaan waa mahadsanta adigan naftirkaasaa u caawinaysid annagana qabiilkeeda anima aqooni hadda markaan lambarkayga publiga 100 jeer aan ka xishooda inaan kusoo qoro haddana waxaa is yiri waa isaga soo qoray markii dambe laaji inaan caawin karno haddana waxaan fiirin qabiilkeedana ani interest ku miyo qof Soomaali inay tahay igu filan ma fahantay ani Soomaaliya ka imaaday meeshaan ka imaaday ma laga aqoonin ba yaa tahay dadka hadda leeb sheekadaas maqal ma fahantay marka intii aan ku caawin karno waan ku caawinaynaa haddii aad qof kale caawinaa u haysidna waa taas wax ma jirto mataqaanaa interviewgeedaas hadda anaga interesting kuma nihin waxaan isleena sheegshaneydkaas waa naqaanaa iyo qaabkiisa iyo guriga inuu expire ka noqonayo iyo waxsan inaan fahansannahay marka wixii aan ka caawin karno waan ka caawin waxaan ka caawin weyno ilaahay nagu ogyahana ma ka caawin karno soo maahan waad mahadsantahay anigu fiir waxaas kuu su'aalaa waxaa waaye dad Soomaaliyeed ayaa waxay ugu leedahay gabadhi baan ku caawino qofkaas ana ku caawina qofkii markay wacaana sheekada waxay ka bilaabayaan adiga qabiilkee tahay ina adeer ninka ilmaha maxaa ku dhacay hooyo ma laha miyaa ilmaha ninka muxuu kugu furay naag hebel muu kaa guursaday waxa badeed oo han baa loo dirsaday marka anigu waxa waaye anigu adiga aqoon ku malihi waa degnin un bay kugu tahay aan kugu sheegaya ma fahanti kuma lihi adaa samaynaysid waana kuu sheegay kala kala wadaa ku dhahay adigu haddaadan samaynin gabdhaha saaxiibayaasha oo leedahay way isoo waceen oo ay leedahay way rabaa inay caawiyaan way ku maqlaayaan qabiilkeeda iyo waxna interesting kuma qof walba qabiil meeshan wax uma taraayo haddii wax taraayo Soomaali qabiil ana qabiil bis kuma dhahoyo anigu xabiibti anigu qabiil bis kama hadla ifahan anigu waxaan badiidaa gabadha interview inaan laga qaadin gabadha in loo tago la caawiyo wax kala inaan la iskugu imaanin ba anigu maxaa interview la qaada anigu kugu dhacay maya abbaaya anigu ifahan khalad ha ii fahmin qof walba anigu i caawiyo anigu sharcigaasaan leeyahay aniga hana ahaan sharci baan samaystay ma fahantay sharci waxaa jirta anigu haddaan gudbo anigu i qabanaya ilaahay khayr ha ku siiyo haddaa caawin kartid caawi laakiin anigu gabadha daqiiqada oo gabadha soo dir adigana waad la hadlaysaa wixii aan isdhahno kale anaga wixii aan ka caawin karno waxaan ku dhahay ani hadalkayga si fiican uma qalabaayo waxaan ku dhahay wixii aan ka caawin karno yaan ka caawinayna waxaan ka caawin karno kale ayada kuu soo sheegaysa ma fahante nacam wixii anaga markaas aan ka caawin karno ilaahay nala og yahay aan ka caawinayna haddaan meelahan degannahay haddaan guri uga raadinayno guri aan ka heli karno intaas meelay sii degto ilmaheeda sii seexdaan haddaan ka caawin karno wixii markaas aan ka caawin karno yaan ka caawinayna wixii aan ka caawin karina ayadaa kuu soo sheegaysa wixii na dhexmara insha allah publicaas aan ka hadlayna waan diidaa aadna waa u mahadsantahay gabadha ilaahay ha caawiyo waa u duceynaynaa adigana ilaahay ha ku caawiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waan salaamayaa marka waa kaas walaashay macaan okay xabiibti haye assalaamu calaykum thank you maandeeqaa ku soo celina
waxyaalada anigu waxaa idiin sheegaa anigu dadka soomaaliyeed ma idiin sheegaa runta u sheegaa anigu dhayman mira soo dhawaaw dadka soomaaliyeed waa su'aalo badan yihiin haa ninka baa kusoo furay haa maxaa anigu ninkeeda badeeda interview gabdhaha anigu waa samaynaya malihi anay igu soo dhacdoo lagu sameeyey oo dad aan caawiyey ku dhacday marka anigu waaba ka degan anigu waan u sheegay qof wax ma qari anigu waxaan dhaa dhegayso listen hiya waa u sheegay waxaan dhaa listen hiya qof ma ii caawine anaa ma stretch wax la qarina ma aqaano laalaabna ma aqaano waxa xaasinimana ma aqaan qofka intuu soo taagaya 2 3 4 5 aan wataa ma qaadani haddaa laalaab wadato caawinaad laalaab ma rabo ani laalaab clean baa u baahana waxaan rabaa caawinaad clean ah caawinaad laalaabna anigu ma rabo gabadhaana bis kuma dhaha in qof walba oo Soomaali ah oo iga soo gala ayaan saas ku dhahaa marka waxaa samaynaysaa aniga hadda qadka waan ka baxaya 6 saac habeenimo ku sii socotaa alla waa 6 saac habeenimo gabadhan waxaan leeyahay gabdhaha nambarkaaga soo siinaya ayagaa ku caawinaya waana u sheega wax la qari waa dhamaatay ani salaamu calaykum abaay idhagayso gabdhaha nambarkaaga soo siina kowdhe gabdhaha waxay ku dhaheen waa caawinaynaa mii maqashaa waa ku maqlaa maxaa la dhahaa ii sheeg bishaara kuma soo wici karka meel kuma saarna gabdha Soomaaliyeed waxay igu dhaheen waa caawinaynaa marka waxaa ii samaynaa kuu sheega i dhageysad markaan gabdhaha way ku soo wacayaan gabdhaha hadday si Soomaalinimo ah islaamnimo ah ay ku caawinayaan aysan ku wareysanaynin aysan ku dhahayn anigu interviewga nacabahay been ma ku sheegay sokor ma qabtaa ee cunugaaga ninka aabiis miya ilmahaaga meeqasana ay jiraan iyo mara nooc xiranta iyo waxaas anigu ma baahni anigu waxaan rabaa qof ku imaado oo ku caawi oo ka meesha ay ku jirtid ka soo dhax saaro meel fiican ku geeyo anigu mar walbana anigu wallahi hadda kow ma aha 100 qof caawisa dadka ku dhaha anigu waaba sharci anigu ii yeelaba ma aha waxaan ku dad ku xumeynay ma aha anigu wax aan anigu meeshan aan rabo inaan qof ku aflagaadeeyo waa sharci anigu ii yeelo qofka anigu qofka caawinaya hore aan ula kulmo dhibaatooyin far badan qof intuu ku caawina u dhahaye qabiilkaaga ii sheeg ها نك محكو فرنا كلام كما سيرت صاحبي وما شو كان صديبا نينا انت قبر ودر عاوده و اصاوي خد ابا كور هدا اسكو كافير استح قلا دغن اسكو سو دغنو اديga halkaada gabar aawadatid waxaas aan soo arkay waxaas wax ka daran baan soo arkay inaan hadla ma raba that's the way aan u diidanahay waa that's the way u diidanahay wax kala gabdhihi meesha soo gala qadka waa mahadsantihiin khayr allah idin siiyo iga ma aha ina aan idinka aan wax in ku sameynay kaligin ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa saan ku dhahaa marka macaanay nambarkaagan soo siina kowda gabdhaha mi maqashaa gabdhaha nambarkaagan soo siinaya si islaamnimo ah walaaltinimo ah ee kula soo xiriirayaan waxaas wax caawinaad ka badan qofka su'aalana waxa tiraahdaa walaalay anigu hana maysan igu dhihin anigu maxaa la dhahaa ii sheeg interview ha laga qaado ma i caawinaysa dhibkaas ay haysta dhibka ku haysta waa maxay hore baan kaga sheekay Facebook barnaamijkana waa soo aragtay waxaan hadda inaan kaala hadlana mar ma aha ku dheh hadda anigu ii damqatay oo islaamnimada Soomaaliya igu damqatay welcome hadda anigu interview ina ila yeelatid arabtidna walaalay anigu interview ilama yeelan kartid anigu interview ma u baahno in la yeesho mi maqashaa bas hadda nambarkeeda ku soo diray sawir aan ka soo qaaday wac gabadho thank you hay salaamu calaykum Soomaaliya meeqa saacayta ma taqaana 6 saac habeenimo ay biri aroorta shaqaalay saaka 6 in the morning safarkii aan aaday meesha aan tag inaan seexdaan rabo waa seexan waay waxa la soo celinaya wallahi telefoonkayga waa damin lahaa hotelka caawa jiifan lahay
waxa lay soo celinaya gabadhan qisadeeday ahayd dayo habar macaan soo dhawaaw dadka ma isku gubi faa'iza animaba ku fahminba walaashay diyo soo dhawaaw diyo ayaan tifooba la aroosta mar dhow xalwo iyo buskud nin kanada jooga abbaay kabahaaga waa cad yihiin lugahaaga waa cadi bishaaro xabiibtii kuma soo qaban kara nambarkayga waa kana qofkii nambarkayga raba nambarkayga sugu waa 46761 mayma 76 konton iyo afar soddon iyo lix eber shan may waxbaa khaldan war nambarkaygaanba garan la aha ii sheega may waxbaa khaldan nambarka waa khaldan 61 aan u malaya sugo waa plus 46761 5436 eber shan والله وادالنا ما أخذ نمبر كي حتى ما حسوسته هنا بليز حتى يشيك أيان تفو ميلا صدون أيان تفو عروس ونين كندا جوجا عروس أمور سودا نين كندا جوجا هنا فائزة وحي كده هذا دتك اسكو ديرين عمل اسكدا خير الله السيئ gabadha sug hala caawiyo okay bishaarakaada kaas ma ahon sug iisuga kii bishaaran sawir ka qaadana iisuga نيكي واكو سلام مدح دلكيغا سو غشي نيكي واكو سلام السلام على والله نفع ما انت بابور صارنا الوهي باي سو كدود والله وحا ايان درأها الله من الصوت ما يدهن ها ninaa imaanaya car firsada nin qabiilkooda imaanaya nin stage ka socda imaanaya car madaxda qaranka markay timaada la soo dhaway Minnesota hallo yaa dhaha maryaha kalrada aad soo marsateen kaale isku soo xoqo ee kaalaya waxaa la soo dhaweynaya oday us buurano oo ii sheeg diamond mira waa ku salaama xabiibtii macaan ku siiye yaa dhahay ii sheeg oday us buurano ii sheeg oo maxaa la dhahaa ii sheeg oo kala jeeda kaalaya soo dhaweey iyo maryama aa qashin soo gashateen Minnesota waa lagu qasaaray waa qasaara socota aniga gabadhaas Diamond Mira weydiya isku guri baa joogna she's my sister dadka ka barta waa my sister sida ukunta ii soo dhaweysay waxay iga ilaalin jirtay tixsiga iyo baraanbarada abaalkeeda ma gudi karo naya ayaan markaa guursatid oo Minnesota Diamond baa lagu geynayaa Diamond إعلام بيكون مرنسا نينك تورنتو بنتو كل شيء بستها كل حاجة جبتها هلاو ها أبو والله ما في على هاي وحي مريكن كدقنا من الصوت إلهي وحن إنكي قبريا يا حق إلهي إنه إذا تسيء معلم من الصوت أنا وشو وحا عادي ميل شراء عادي ماشي شركة عادي مركز ميدكو إيما يقول ها أباي كسماي ما كتب ما دفيريا wuxuu igu dhahay idin sheega hadda waa wuxuu aaminsan yahay wax laan la dhahay anigu laan ma aaminsani abay kismaayo ma ka timaasana u fiiri haabaan ku dhahay kismaayo ka imaaday markaas wuxuu igu dhahay ha
mareer armaaja mareer gasacyo baata gasacyo saasta u fiir waxaa ku dhehe maya waxaan ahay reer qaran ba ahay calanka buluuga ii hugsa markaa calanka buluuga isku qabin lahan aan dheh anigu markaas wixii ku dheh waan ka xumahay haddaa ii sheegi lahayd ciddaa tahay cashaan ku geyn lahaa ayaan baa soo qartay jubbaland war wax leen lahaa ma jira walaa jubbaland baan jirin walaa galmudug stage baan jirin walaa puntland baan jirin walaa somaliland baan jirin khuraafaad baa isku akhristeen nin waxaa soo baxay xasan cali khayr kabtiinu kor u tuura kabtiinu kor u tuura wareeriyow buu inku xira wareeriyow wixii laan la dhaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaan leeyahay wixii laan la dhaha kabtooda kor u tuura maba maqli karnaba annagu hana abubakar kayga meesha ka saar bay ka saar abaayo kayga meesha ka saar maa tiri nambarka isoo qorta maa ka saaraa hol dhadan waaba ninkii waa ku salaamay suga alla ayaanaa ku jirto alla ayaan baa ku jirto xabiibtii macmacaan kusi ninkii waa ku salaamay qoraalkaan alla sug haddaa ujeeda iisug anaa ka saaray hadhowaa hadda kama saari karo xabiibtii waxba uma jeedo taada kale waxaa idiin sheegaa mataqaani alxamdulilah alshukurlah alla ilaahay mahadiisa lama soo koobi karo alxamdulilah alshukurilah gacmihii muujeedin bahalladii mixirni alxamdulilah gacanta aan xirta igugu dambaysay 2 beri 3 beri kanna waa ducadiina khayr allaha idin siiya kanna ma ujeediin maanta dhan mixiranin walaalayaalo waa 6 saac habeenimo iyo bar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabadha soomaaliyeed nambaradeeda idiin soo qoraya alxamdulilah alshukurilah waa xabada sawdada lay keena haddaa idin tusi waa iga cayuumaysin haddana deyo xaba sawdada sacuudiga igaga soo iibisay jubbaland way jirtaa afka kala bax maa igu tir habsan iska bax adaa baxay sidee wax jubbaland laha aysan jirin maryaha kalarada aad soo marsateen waxaa jirta magaalo la dhaha kismaayo caasimada labaad dalka soomaaliya waa hargeyso waxaa jirta magaalo kismaayo la dhaho cabdirasaaq alteesa ku dhashtay waxaan qarinaya ma jirto ma seexanayo isug waxaa jirta magaalo garowe la dhahayo oo waxaa ku dhashtay wiilan faransnaane xabiib idinka ay ka shidanta magaalo jawhar allaha waxaa ku dhashtay ii sheeg maxaa lagu dhahaa ii sheeg kii kala salaal cali jeele عفسي مسامع لسه حبيبي ما تلفونياشي اسكو حرحريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوماليا توسو اسكو تيرسدا هاد بكينا تاج درم تاجير وليجينا وحلال لدهنا ما جيرو سوماليا هل علم بي لهدهي هل مدحويني لهدهي وفرماجة هل رئيس وزاري لهدهي وحسن على قيري كبتينو كروتورا كبتين رئيس الوزراء dalka Soomaaliya waxaan leeyahay guulayso waxa la dhahana kabtooda kor u tuur calanka buluuga kugu ogahay guul igoonima idin rashid dambigeena Allah dhaafo salaamu calaykum habeen dambana waxaan hayaa sheeko waalan habeen dambe don't miss it habeen dambe waad yaabaysin maqli jirtay aan wax ii harsan ma laha anigu ma yaabay waxaas waxaan dhahay ilaas ma la dhahay waxaas ma sameeysaa ilaahay xaqatu si awooga iyo landkaaga jannaha la geliya wax maryo wataaba necebahayba habeen dambo ilaahay hadduu i gaarsiiyo insha allah biidina dhagihiina faraha gashanaysa Soomaaliya waxaa idin harsan naag hooyo ayay saddexdiina qaawana Facebook waa soo geliseen dimana biri 2 saac inta daan shada caaw 1 saac daan seexda oo biri shaqo aad because safara ahay moogtahay weekend inaan shaqeeyo laga rabaa ilma adeer waxaan la tagi lahay Afrika laga rabaa inaan shaqeeyo waay dadka waxa u taga marka
markaan meel soo fariisto swiisha ku hadla hey minaharara dhamaharabara hey aan dhaho doomaro harar markaan dhaho lagu dhaha hey sheenare assalaamu calaykum facebook live aa ku jira oo kugu soo celinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guul iyo gownimo idin rashi ayaantifow ninka canada jooga ku shukaansanaya waa lay sheega xalay baan ku riyooday adoo nin shukaansanaysa diyo habar naagta ninka ka soo celi ninka canada jooga halow baybe ku guraya canada ku geyraya lugaha ku dhaqa been buu kuu sheega ayaan sweetheart I love you guys asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu